isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka saaxil oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa maanta kormeer kadisa ku gaadhay degmada Gudaweyn gaar ahaan xarunta caafimaadka ee degmadaasi. maamulka iyo shaqaalaha kala duwan ee xaruntaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana uga warbixiyay adeegyada kala duwan ee ay bulshada siiyaan iyo sidoo kale qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan caafimaadku. isuduwuhuna waxa uu ku wareejiyay daawooyin lagu talagalay xaruntaasi. intaas kadibna mas'uuliyiinta xarunta caafimaadka ee degmada Gudaweyn iyo sidoo kale gudoomiyaha degmadaasi iyo saraakiisha ciidanka booliiska ayaa warbixin ka siiyay habka ay u socdaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso xaruntan caafimaadka ee degmada Gudaweyn. every day ay shaqo jimcaha mooyaane ilaa 7 ilaa iyo 2 dadkan kilibada xun sii deynayaan inaan waxba ka ogeyn inuu xuna iska sameeyo ya taasuna waa lagu daba soconayaa kulli khaladka ay sameeyeen. waxaan u mahadnaqaynaa qoladii leedka noo xidhay iyo isduwayay waxa soo hawsha ay wadeen ilaa iyo wasaaraddu. xaruntu way shaqaysaa mar kasta oo 24 hours ka way shaqaysaa leerkii oo bari dhaweytay isaguna xumaa waa la hagaajiyay hay'adda Alight baa ka shaqaysay oo wasaaradda caafimaadku ay ay heshiis kula gashay in ay leerka hagaajiso. xaruntan Gudaweyn 24 saacadood way shaqaysaa. waxaan media ku arkaynay dad leh waa xidhantay uma shaqayso xaruntaas, laakiin waxaanu dabageli doonaa dadka waxa sameynaya duubaya kliibo been aan jirin. waxaanu horgeyn doonaa sharciga. xarun adeegta hooyada iyo dhallaanka iyo dhammaan dadka oo dhan wax xarun runtii qaybta qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee wasaaradda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ee socdaalka ku wehelinayay isuduwaha waxay sheegeen in xaruntan uu adeegyada caafimaad uu si habsamiyo u socdo isla markaasina ay gaarsiiso dadka reer guuraaga ah ee ka agdhow degmada Gudaweyn. waxaan aad ugu mahadnaqayaa shaqaale weynaha degmada Gudaweyn ee xarunteeda oo si hagar la'aan ugu shaqeeya aynu ugu nimid ilaa 2 doornimo oo shaqeynaya. taasina waxa ku tusaysaa kulay dadaalka iyo kartida ay shaqaalahaas bulshadooda uga adeegayaan. sidoo kale iyana waxa mahad leh maamulka degmada isaguna si dhow la shaqeynaya oo maayir oo inala joogo gudoomiyaha degmadu. waxaana ina tusaysaa dhammaan in shaqada la wada hayaa tahay mid lagu adeegayo bulshadeena jilicsan ee hooyada iyo dhallaanka. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Xasan Maxamed Cabdilaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay goobtan iyo habkay u shaqeyso. waxa uu intaasina ku daray in ay sidoo kalena adeega leerka oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga cabanayay ay dhammaystireen wasaaradahan. runtii xaruntan caafimaadka Gudaweyn waxay u adeegtaa deegaan aad u ballaaran oo culayskiisa iyo tiradiisaba leh. waana xarun maxaa la yiraahdaa adeeg bixinta caafimaadka primary oo dhan ka baxo. hadday nafaqadii tahay, talaalka hadday tahay, daawadii bukaan socodka haddii ay tahay, dhammaan dhalmadii, ambulanskii, emergency-gii wax kastaaba ay yaalaan. dhammaan macala oxygen-tii ay taalo, ultrasound-kii u yaalaa. dhawaanahan waxaa tushush baa jiray sheegaya in xaruntu gelinka dambe aanay shaqayn, laakiin waxaan anugu markhaati ka ahay inay xaruntaasi 24 saacadood ay shaqayso. shaqaalaha qaarkoodna aanay meel kale u hoyan oo ay meeshaba u hoydaan iyagoo heeganka halkan ka gala. runtii maalinkii dhawaato dacaayadii dhacday isla maalinkaas buugga registerka markan dib ugu noqday waxay u adeegeen 40 qof oo caruur iyo waayeel isugu jira. geligii dambana waxay u adeegeen 2 qof oo dhalmo ahaa oo si wanaagsan bay ugu adeegeen. umulahaasina si fiican bay u kala yimaadeen oo caruurtuna way caafimaad qabeen. marka ilaa habeen ilaa geli dambe ilaa subax shaqaalahan heegan bay ku jiraan. waxaan markhaati ka ahay shaqaalaha halkan la joogaa inay yihiin shaqaalaha ugu siniyarsan gobolka saaxil, waana kuwa ugu waqtiga dheer leh ee waqti badan ka soo shaqeynaya caafimaadka gobolka, xirfad weyn oo heer saraana leh. isuduwuhu wuxuu sidoo kale uu kormeerkaasi la mid ah ku soo maray xarunta caafimaadka ee degmada Madheera gaar ahaan xarunta Sheekh Abdaal oo iyana uu soo indheeyay sida ay u socdaan adeegyadan ay bulshada siiyaan. Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.